waxaan barnaynaa job interview erayada inta badan markuu qofka su'aalaha la weydiinayo laga qaado. So interview can be a written or oral, wuxuu noqon karaa wax qoraal ah mise afka laga weydiinayo. Tusaale ahaan marka maanta erayada inta badan ku soo arooray asaan u fiirinaynaa criteria waxa weeye shuruudaha qofka laga rabo, is a requirement. Tusaale ahaan every company has a set of a criteria, wuxuu leeyahay shuruuc asaga u degsan. waxaa ka mid ah qofka shahaadada inta leeg ayuu wataa, tusaale ahaan dugsi sare iyo jaamacad, waayo aragnimadii shaqada ma ka soo shaqeeyay, that's so called criteria, waa shuruudaha laga rabo. shortlisted waxa weeye xulasho. tusaale ahaan dad badan ayaa soo codsaday positionka, marka waxaa soo xulanaysaa qaar ka mid ah. For example, 100 candidate apply that position at the same position, so you shortlisted 10 of them. 10 ka mid ah leedahay, 10 kan ugu muhiimsan ayakan si kala saarayna. recruiting waxa weeye shaqaaleysiin, waa hiring a new staff, shaqaale cusub inaad qaadatid company-gu qaato. panel waxa weeye guddiga dadka weydiiyo. tusaale ahaan markaad interview galaysid waxaad u imaanaysaa dhowr qof oo meel fadhido, dadka saas meesha u fadhiyo ee guddiga waxaa la yidhahdaa panel. notice period waa xilliga la isa soo ogeysiinaya haddaad noqotay guuleystihii mise in haddaad dadkii guuleystay ka mid noqotay. tusaale shaqadii waad gashay, imtixaankii aad qaadatay, interviewgii aad martay, marka waxaa lagu leeyahay 15 beri ka dambe 2 weeks or 3 weeks you will get a notice. That's a notice period, waa xilligaa ogaan kartid inaad guuleysatay inaan lagaa guuleystay. line manager waa cidda aad kaa sarreyso adiga, line manager. tusaale waxaad tahay meel baad u weyntay, company waxa laga 500 qof inay ka shaqeyso, qofba meel buu ku xiriiraa, cidda rabtid ma xawan weydiinaysid, cidda rabtid warbixin uma diraysid. There is a line manager, this one is a line of reporting, cidda wax weydiinaysid, cabasho u geynaysid, aqoon kororsi ka raadinaysid, waxay noqonaysaa line manager, ninka ka sarreeya adiga. candidate waxa weeye musharax, positionkii booskii la raadinayay inta qof oo raadinaysa candidate. okay, body language waa qofka in laga garan karo marka wax la weydiinayo wax inuu ku faraxsan yahay, inuu yaqaano. waxaa ka mid ah midda kale, waxaa ka mid ah face expression, wejigaaga in la akhrisan karo. waxaa ka mid ah eye contact, inaad dadka dhammaan fiirisid oo hal meel aad u jeedin, waa body language. speak up erayada imaaday ka mid tahay, waxaa lagu dhihi karaa kor u hadal, kuma maqalno xagga fadhida, marka waxaa lagu leeyahay we don't hear you, please speak up, kor u hadal.